بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaan rabaa halkan aan ku duubo cashir yar oo chemistry ah kaasoo ciwaankiisu uu yahay different between metals and non-metals farqiga u dhaxeeya curiyaasha biraha ah iyo kuwa aan ahayn biraha markii laga hadlayo curiyaha waxaa loo qeybiyaa saddex qeybood kuwa bir ah kuwa bir aan ahayn iyo kuwa bir u eg macnaha waxay leeyihiin astaamo birna way leeyihiin astaamo maxay ahaydoo kan biraha ahaynna way leeyihiin marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo farqiga u dhaxeeya metalska iyo non metalska ayaan rabaa duu ilaah yiraahdo inaan ka hadlo haddii aan hore usii socono waxaan sameeyey tusa ayaan sameeyey leenkan u jeedaan waxaan ku qoray astaamaha lagu garto metalska leenkan kalena waxaan ku qoray astaamaha lagu garto non metalska metalska ayagu waa solid except mercury it is liquid metalska waa adke waxay ku sugan yihiin xaalad adke statekoodi waa adkor waxaan soo barnay state of matter saddex ay ahaayeen solid liquid iyo gas marka metalska ayagu waa solid laakiin mercury ayaan ahayn solid mercuryga waxa waaye liquid waa dareere all metals dhammaan curiyaasha biraha ah are solid waa adke except marka laga reebo mercury marka laga reebo mercury it is liquid isagu waa dareere non metals are present in three states solid liquid and gas non metals ayagu waxay u jiri karaan saddex xaaladood solidna way noqon karaan liquidna way noqon karaan gasna way noqon karaan saddex xaaladoodba way ku sugnaan karaan ayaga laakiin metalka waxaan nidhi kaliya wuxuu ahaanayaa solid marka laga reebo mercury non metalska ayaga saddexda xaaladoodba way noqon karaan metalska they are luster shiny waa kuwa ifaya waxay bixinayaan metalska if ayay bixinayaan non metalka they are not lustrous ma ahan kuwa if bixiya they are not lustrous ma ahan kuwa bixiya if inaad carbon ama oxygen kuwa ayaa ah non metalska ma awoodaan ama ma sameyn karaan inay bixiyaan if laakiin metalska way bixin karaan if waa farqiga labaad ee u dhaxeeya metalska iyo non metalska metalska are hard metalska biraha are hard waa adeeg maanta bir haddii aan taabano waxaad dareemaysaa inay tahay adeeg hadda biraha waxaa kamid ah dahabka ayaa kamid ah dahabka taabo waa adeeg goldiga waa adeeg yahaa laakiin non metalka markii laga hadlaayo are soft way jilacan yihiin soft wey metalska waxaan dhaani are hard way adeeg yihiin non metalskana are soft waa kuwa oo jilcan metals are good conductor of heat and electricity metalska waxay aada ugu wanaagsan yihiin ama ugu fiican yihiin inay gudbiyaan kulka iyo danabka electricity iyo heatka inay gudbiyaan intaba way ku fiican yihiin non metalska are poor conductor of heat and electricity non metalka ama kuwa birtaan ahayn ayaga kuma fiicna inay bixiyaan kul iyo qulqul danabeed intaba ma bixin karaan laakiin metalka waxaan nidhi way bixin karaan ama way gudbin karaan kul way gudbin karaan metalska are good conductor of heat and electricity waxay aada ugu wanaagsan yihiin inay gudbiyaan kul iyo qulqul danabeed non metals are poor conductor of heat and electricity ma awoodaan ama ma bixin karaan inay gudbiyaan kul ama qulqul danabeed non metalska ma gudbin karaan heat and electricity intaba midna ma gudbin karaan metals are ductile metals waa ductile means they can drawn into wires waxaa laga dhigi karaa birta wires ayaa laga dhigi karaa sida waa la dhuubin karaa sida silig ama fiilo oo kale ayaa laga dhigi karaa marka sidaad fiilada ii sheeg koronto soo gudbiso koberka oo kale ayadoo fidsan waxaa laga dhigi karaa marka mid oo aada u dhuuban sida fiilada oo kale ah
non metalka are not ductile ayagu lagama dhigi karo marka non metals are not ductile ayagu ma laga dhigi karo wires ama fiilo ama silig oo kale looma dhoobin karo. Metals they are malleability waa malleability waxaa loola jeedaa waa la fidin karaa macnaha waa la fidin karaa ayaa loola jeedaa malleability-ga. They can be bonded into flat sheets waxaa laga dhigi karaa sheets ayaa laga dhigi karaa marka haddii maanta aan bir usoo qaadano dube ama bahalka la yidhahda ii sheeg burus aan usoo qaadano aan ku garaacno birtaa way fidsamaysaa waxaa loo yaqaanaa astaantaas marka malleability way fidsamaysaa waa la fidin karaa. Non metalka no malleability ayagu astaantaasi ma laha lama fidin kara haddii maanta aan soo qaato wax oo aan ahayn isheeg bir aan ahayn sida alwaax oo kale haddaan soo qaato maanta aan u qaato burus aan garaaco way jabaysaa wixii waxa waaye broken down wuu burburayaa marka ma lahan astaanta la yidhahdo malleability ma lahan non metalska laakiin metalska way leeyihiin metalska have sonrow sound waxay leeyihiin cod ayay leeyihiin cod ayay bixiyaan hadda maanta haddii aan metal ama bir aan meel ku dhufano waxay leedahay cod noocaas ay bixisaa marka. Non metalka they have no sonrow sound ma lahan cod ma lahan ayaga cod ma bixiyaan haddii maanta wax non metal aan ku dhufto meel tusaale carbon ayaa ka mid ah ama oxygen ayaa ka mid ah non metalka laguma dhufan karo meelba marka ma bixiyaan cod ma bixiyaan. Metalska have high density waxay leeyihiin culays aad u sareeyo. Metals have high densitygoodii ama culayskoodii aad buu u sareeyaa. Non metals have low density non metals markii laga hadlaayo culayskoodii aad buu u hooseeyaa waa low. Metalska markii laga hadlaayo lose electron in chemical reaction waxay lumiyaan electron ay lumiyaan markay dhacayso falgal kiimikeed ama markay qayb qaadanayaan falgal kiimikeed waxay luminayaan electron halkan non metalska ay sameynayaan gain electron waxay soo qaadanayaan electron ay soo qaadanayaan marka intaa way ka badan tahay ama way ka badan yihiin farqiga u dhexeeya metalska iyo non metalska marka aniga intaan ayaa ku soo koobay waxaan rajeynayaa in aad loo dhageysto aadna loo fahmo haddii cashirkan uu kusoo gaaro ka faa'iideyso haddii aad maxay ahayd hore u taqaanin u sheer garay asxaabtaadii si ay ugu faa'iideystaan. Asalaamu calaykum waraxmatullah.